diyaaraddan gargaarka ee wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland uu gaarsiiyay deegaanka Xariirad ayaa qayb ka ahayd gurmadka xukuumadda Soomaaliland ay gaarsiinayso dadkeeda ku tabaaloobay xeebaha galbeedka Soomaaliland ee ay dhawaan ku dhufatay duufaantii iyo roobabkii iswatay ee khasaaraha ballaaran ka geystay deegaankaasi. wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayaa dadka deegaankaasi uu sheegay in xukuumaddu la wadaagayso dhibaatadaas isla markaana ay gargaar kala duwan u fidisay oo ay diyaaradda soo gaarsiiyeen gargaaradaasi. wasiirka ayaa deeqdaasi ku wareejiyay gudoomiyaha degmada Xariirad waxaana wasiirku ka hadlay deeqdan iyo ahmiyadeeda waxaan hadaladiisii kamid ahaa. maanta waxaan ku sugannahay bishii shanaad keedii 2018 magaalada Xariirad degmada Xariirad iyo wada hareero joogan awqaashii maayaradii xildhibaanadii dadkii waxgaradkii security madaxda amniga u qaabilsanayd anagoo u soconnaa hawshii ka dhacday gobolka Awdal iyo Salal roobkii iyo dabayluhu saameeyeen alxamdulillah rabbil caalamiin anagoo markii ugu horeysay anagu aan iyadu soo wada marnay dhammaan ceelsha ka soo bilownay oo meel walba soo istaagnay oo dib walba aragnay oo madaxweynuhu noo diray madaxweynaha mudane Muuse Biixi Cabdi uu sakan iyo waqti kasta uga damqanayay dhibaatada jirta isagoo ku dadaalay ciriyo dhulba wuxuu ka gelin karo dadka ku gaarsiin karo mucaawimo. sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay duqa degmada Xariirad iyo mas'uul ka socday hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga Soomaaliland oo kala bariis sonkor daqiiq baasto iyo biyo taasoo loogu talagalay arrintii dhibaatada ahayd deegaamada xeebaha ka dhacday ee roobabkii dabaylaha watay maantana soo gaaray diyaarad ka mid ah mucaawinooyinkii sida degdega loo qaybinayay meelihii ay saamaysay duufaantii dhawaan dalka ka dhacday gaar ahaan gobollada xeebaha ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo gartay in dadkiisa sidii sifaalihii ugu degdega badan ee loo taakulayn karayo iyo wixii la gaarsiin karayaba inuu gaarsiiyo. dhinaca kalena odayaasha deegaanka iyo dadkii ku waxyeeloobay dhibaatooyinkaasi ay soo gaareen ayaa ka mahadnaqay gurmadkan xukuumadda Soomaaliland iyagoo mahadnaqay xukuumadda Soomaaliland iyo wasiirka cadaaladda ee Soomaaliland. madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waan ammaanaynaa iyo madaxweyne ku-xigeenkaba ilaahay baa mahadle inta colka u joogtana colkooda Allah baabi'iyaan leena Allah baabi'iyo waxaan maqlaynaaye ta labaad waxaan ammaan leh wasiirka cadaaladda ee noo yimiday wallaahi dhibaato badan baa na gaadhay dad nagama dhiman aqallo iyo dunyadii iyo inta way luntay madaxweynaha oo mahadnaqaynaa ummadeena soo deeqday. Cabdikariim Saciid Saalax Home Cable TV Hargeysa.